xarunta xalane oo saldhig u ah reer galbeedka iyo sidoo kale ciidamada midowga Afrika AMISOM waxa saacadihii u dambeeyay ka dhacay kulamo foolka fool ah oo u dhaxeeyay taliyaha hay'adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo sidoo kale wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador James Iswan kulamada ayaa waxaa looga hadlay isla markaana diiradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan Soomaaliya doorka qaramada midoobay arrimaha doorashooyinka la dagaalanka argagixisada al-shabaab iyo sidoo kale nabadgelyada magaalada Muqdisho ka hor intaana la gudagelin arrimaha doorashooyinka labada mas'uul ayaa wararku waxay tilmaamayaan in kulankan uu noqday mid saacado badan qaatay isla markaana bahda warfidiyeenka loo diiday inay qayb ka noqdaan kulankaasi walow wararka qaar helin ay sheegayaan in la isku afgartay arrimo dhowra qodobada inta badan la isku afgartay waxa kamid ah in meel looga soo wada horjeesto la dagaalanka al-shabaab iyo in sidoo kale arrimaha doorashooyinka waqtigooda ay ku dhacaan wararka qaar waxay tilmaamayaan in labada mas'uul ay isla soo hadal qaadeen khilaafka u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada iyo arrintaasi xal looga gaari lahaa labada mas'uul ayaa wararku waxay tilmaamayaan in kulankoodu ahaa mid miisaan leh maadaama Fahad Yaasiin ay saaxiibo dhow yihiin madaxweyne Farmaajo iyo dawladda Qatar halka James Iswan uu arrimahaasi dhexdhexaad ka yahay walow wararka qaar ay tilmaamayaan in laga yaabo in muddo kororsi ay dhacdo arrimahan maanta ka dhacay xarunta xalane ayaa waxay ku soo aadayaan iyadoo khilaaf uu ka taagan yahay doorashada la filayo inay ka dhacdo Soomaaliya